mar labaad waxaan xoog ugu mahadnaqayaa xilligii adkaa iyo wadadii dheereen soo marnay bulshadii na garab istaagtay aad baan ugu mahadnaqayaa ma ilaawi doono waligay qalbigana kama bixi doonto kale bulshadaas weyna ogaataa inaynu guuleysanay maanta imika waxa hareeraha iga fadhiya waxa weeye golayaashii deegaanka degmada Boorame iyo degmada Saylac anigu ummadii aan hogaamiyay hogaanka u noqday maanta xubnaha ugu badan beesha dhexdeeda ay heshay waa kuwaasi maanta matalaad bay ku leeyihiin degmadii Boorame waxay ogaatay bulshadaasi maanta waxa la iyo wixii ka soo gala maanta dawlad inay cid matasha degmada Boorame leeyihiin degmada Saylacna inay leeyihiin oo hawshaas hawl fiican oo han qabanay ay tahay siyaasadana sida aynu u soo galay ayaanu ugu sii soconaynaa tamar cusub iyo waayaragnimo cusub ayaanu u qabnaa waxa weeye guul baan joognaa boqolkiiba boqol ilaahay haduu yiraahdo mahad baan idin hayaa dadka shacabkii isoo doortay ee qiimaha lahaa kun iyo kow jeer baan u mahadnaqayaa hana ogaadaan bulshadaas inay guuleysteen aad baan idin salaamayaa ka horeysa waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay mahadale ee soo gaarsiiyay halka aan maanta joogno ee lagu guuleeyay tacabkayagii mar labaadka waxaan u mahadnaqaynaa bulshadii na garab joogsatay ee hoo iyo hiilba nala garab joogsaday meel kasta oo joogaan dal iyo dibadba nin kasta oo wax ka geystay hoo iyo hiilba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii aan ballan qaadnayna kolley way naga go'an tahay inaan halkeegii marino waa ogeydeenoo dagaalkay nagu socday waxba nigama qarsoonayn alxamdulilah waan guuleysanay laakiin maanta khasaare ma qabno bulshadii na soo dooratay meel kasta oo joogaana aad iyo aad iyo aad mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa horta marka koowaad bulshadii kala duwaneyd ee xoogga lahayd ee aadka noogu taageertay ololihii ballaarnaa ee soo galnay waxaan halkan ka leenahay boqolkiiba boqol waad mahadsantihiin sidaynu hore u ballan qaadnayna dee wakhtigan qofka aan inaan guryihii sidii qof kaste saan u ballan qaaday kusoo maro waxaan ugu adeegi doonaa hadduu ilaahay xilkaasi insha allah nagu asturee sida ugu wanaagsan ee ugu qurux badan ee dadkaasi qancisa ayaan ugu adeegi doonaa maadaama xildhibaanadii maayraa waan arkaynaa laakiin shacabka jawaabtoodii waa dhammaatay way soo jawaabeen iyagu doorashadii bay ahayd tan dambe waxay u taallaa 13 golaha deegaanka anuu imika ma odhanayo maayar baan ahay laakiin wixii qoran ilaahay baa og waxa weeye ninka shacabka imika u celinaya ee odhanaya maayar baan ahay waxaan maleynayaa dariiqaasi waa ka yar lumay laakiin anagu waxaan ku dadaalaynaa in insha Allah qof wanaagsan inuu ilaahay naga soo dhex saaro oo ummadu aad iyo aad ugu farxaan masayrka ummaduna maanta de gacmaha uu ku jira ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay na kala siiyo bulshada loolan adag iyo waqti adag baynu soo marnay alxamdulillah maanta laakiin mudahaygi waynu haynaa